بسم الله الرحمن الرحيم وهبين متلاده او اي 4 soo galayso 30 bisha September sanadka 2025 oo ku beegan 8 bisha Rabiul Thani sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubaraha qodobada caawa barnaamijka aan idinku haynana waxa kamid ah dagaalamayaasha iska caabinta Gaza oo ka warbixiyay hawlgalo culus oo kanana ciidamada Israa'iil waxa kamid ah taangiye la qararamsaday ciidamo la beegsaday iyo gawaari la gubay Hamas oo war cusub ka soo saartay hindisaha Trump ee joojinta dagaalka Gaza Qatar oo caawa muujisay in uu jiro saluug ku saabsan qodobada heshiiska uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka ee la xiriira colaadda ka aloosan Gaza madaxweynaha Iran ayaa si cad u sheegay in dalkiisa aysan u qornayn waxa la yiraahdo isdhiibid iyo in madaxa hoos loo foorariyo Trump oo si wada calmashada uu u qabo abaalmarinta nabadda ee Nobelka isagoo ku andacoonaya in uu xaq u leeyahay inuu ku guuleysto biladaasi sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aan kugu hayaana waxay ku aadan tahay shirkadda Reebok ayaa waxa ay joojisay iskaashigii ay lahayd xiriirka kubadda cagta ee Israa'iil iyadoo arintan ay ku lug leedahay dagaalka Mareykanka Gaza dhamaan qodobadan iyo waliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii wara ee soo kordhay inta hawada ku jirno ayaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha dhawaada markana daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda Iran iyo reer galbeedka ka dhex aloosan ee la xiriirta barnaamijka nuclearka ee Iran iyadoo cadaadiska uu ku sii kordhayo Iran ayaa madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian waxa uu ku adkaystay in dalkiisa aysan buuga ugu jirin waxa la yiraahdo isdhiibid Pezeshkian oo hadal ka jeediyay xaflad lagu maamuusayay ordiyahanada ciyaaraha legdanka iyo tartamayaasha ayaa waxa uu yiri adduunku wuxuu nagu cadaadinayaa si uu noogu qasbo inaan isdhiibno balse isdhiibiddu ma aha caadadeena madaxweynaha Iran oo hadalkiisa si ambaqaadaya ayaa waxa uu yiri madaxa hoos uma foorin doono wuxuu carabka ku adkeeyay oo kale in dalkiisa uu iska caabin doono ilaa iyo qofka ugu dambeeya cadow kasta oo soo hujuuma isla markaasna uusan jilbaha u laaban doonina isagoo isdhiibaya wuxuu muujiyay sida dalkiisa ay uga go'an tahay in uu wajaho caqabadaha dibadda madaxweynaha Iran ayaa intaasi ku daray in dawladdiisu ay qaadayso tillaabooyin wax ku ool ah oo ay ku jirto hagaajinta xiriirka dalalka dariska taasi oo qayb ka ah dadaalka lagu yareynayo cadaadiska laguna xoojinayo iskaashiga gobolka waxa uu sheegay in dadka Iiraaniyiintu ay gaareen heer wacyi buuxa oo ku saabsan awoodooda isagoo intaasi ku daray in fahamka awoodda qaranka uu saldhig u yahay adkaysiga iyo madax banaanida reer Iran hadalka madaxweynaha Iran ayaa waxa uu yimid kadib markii Ruushka iyo Shiinaha ay ku guuldareysteen toddobaadkii hore qorshe ay hordhigeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay ku doonayeen in dib loo dhigo cunaqabataynta taasi oo fursad siin lahayd wadahadallada diblomaasiyadda laakiin dalalka reer Yurub iyo Mareykanka ayaa dib u soo cusboonaysiiyay cunaqabatayntaasi iyagoo u maraya golaha ammaanka ee qaramada midoobay saddexda dal ee reer Yurub ee kala ah Faransiiska Jarmalka iyo Britain ayaa ku adkaystay in kormeerayaasha hay'adda xakamaynta nuclearka ee IAEA ay helaan galaangal buuxa oo ku saabsan xarumaha nuclearka Iran waxaana shuruud ay ka dhigeen dib u bilaabista wadaxaajoodka Washington in la helo damaanad ku saabsan barnaamijka nuclearka gaar ahaan uraniumka iyadoo la sheegayo in Iran ay ku adkaysanayso in barnaamijyadeedu ay yihiin kuwa nabadeed oo aysan ku tala jirin in ay samaysato hubka nuclearka Iran ayaa dalabyada ku aadan in ay u ogolaato
kormeerayaasha IAEA xarumahaasi waxay ku tilmaamtay kuwo aan macquul ahayn iyadoo ku adkaysatay in barnaamijkeedu uu yahay mid nabadeed waxay kaloo sheegtay inaysan jirin wax tanaasul ah oo ku saabsan barnaamijyadeeda nuclearka nabadeed waa hagaag imikana Washington madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxay kaga dhigan tahay inuu helo abaalmarinta nabadda ee adduunka wuxuu ku andacoonayaa in dhowr dagaal uu joojiyay laakiin labadii dagaal ee ugu muhiimsanaa ee ku soo galay doorashada kuma aan guuleysan waa dagaalka Gaza iyo dagaalka Ukraine oo ku andacooday in 24 saac uu ku joojin doono haddaba mar kale wuxuu ka hadlay inuu yahay qofka kaliya ee u qalma inuu ku guuleysto sanadkan abaalmarinta nabadda ee Nobelka haddaba aynu eegno war amurtan la xiriira madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulka uu hogaamiyo uu ku guuleystay waa sida hadalka uu dhigay joojinta 9 dagaal oo waaweyn tani markii xilka uu qabtay kii ugu dambeeyayna uu yahay qorshaha nabadda bariga dhexe ee lagu joojinayo dagaalka Gaza inkastoo dagaalka iyo duqeymuhu ay socdaan weli isagoo khudbad ka jeedinayay shirka saraakiisha sarsare ee ciidanka Mareykanka ee ka dhacay Virginia Trump waxa uu xusay in uu ku guuleystay in uu soo afjaro khilaafyo dhowr ah oo ay ku jiraan dagaalkii ku dhawaad 36 sano ka dhex socday Armenia iyo Azerbaijan iyo sidoo kale dejinta xiisadii u dhaxaysay Hindiya iyo Pakistan haddii qorshaha aan soo bandhigay ee lagu joojinayo dagaalka Gaza uu guuleysto wuxuu la mid noqon doonaa joojinta dagaalo badan ayuu ku andacooday madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in uu damacsan yahay in kulan uu isugu keeno madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa Ukraine Volodymyr Zelensky si loo soo afjaro dagaalka dalalkooda ay ku lug leeyihiin Trump ayaa ku adkaystay in uu xaq u leeyahay abaalmarinta nabadda ee Nobelka maadaama sida uu yiri uu joojiyay 8 dagaal muddo 8 bilood gudahooda isagoo ku tilmaamay guul weyn isla markaasna sheegay in haddii aan la siin abaalmarinta ay noqonayso meel ka dhac weyn oo ka dhana Mareykanka Trump ayaa ku andacooday in Mareykanka uu noqdo ama uu noqdayba dal aad u xoog badan oo cidna aysan isku taagi karin isagoo sheegaya in ciidanka dib u soo dhisay 95% halka markii hore wasidalku yiri hoos u dhac uu ku jiray Trump waxa sidoo kale uu ka hadlay hanjabaadihii ugu dambeeyay ee Ruushka isagoo yiri waxaan wajahnay halis yar oo Ruushka ka timid wuxuu soo diray markab xambaaran nuclearka kaas oo ah hubka ugu khatarta badan ee weligiisa la sameeyo Trump ayaa carabka ku adkeeyay inuusan doonayn in uu adeegsado dagaalka nuclearka isagoo yiri waxaa jira dareen hanjabaad ah oo ka imaanaya Ruushka madaxweynaha Mareykanka ayaa ku faanay in dalkiisa uu ku sareeyo tartanka hubka hawada sare halka markii hore uu ka hooseeyay Ruushka iyo Shiinaha isagoo yiri hadda waxaan ka horeynaa 180 oo sida hadalka uu dhigay waa tahay macluumaadkaasna halkaas aynu kaga gudubna waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay Gaza dagaalamayaasha iska caabinta Falastiiniyiinta oo ka warbixiyay hawlgallo culus oo ay fuliyeen qadar oo caawa muujisay suluug ku saabsan qodobada hindisihii la soo bandhigay iyo Israa'iil oo leh waxba laga bedeli karo wixii la soo jeediyay wahagaag xagga Gaza aynu qoraansanno xalay ilaa iyo maanta wararkayga waxaad kula socoteen militariga Israa'iil oo qirtay qasaare xoog leh inuu ka soo gaaray ciidankooda hawlgalladii ugu dambeeyay iyo dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay marayka Gaza inkastoo Israa'iil si wado dagaalka lagu sifeeyay xasuuqa ee ka dhanka dadka Falastiiniyiinta haddana xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta ayaa dhankooda waxay wadaan weerar kala duwan inkastoo isbedel uu ku yimid sida warka ay soo gudbin jireen sababa lagu tilmaamayo sida qobarada ay sheegayso xaalada ammaan oo markii hore maalin kasta ama saacad kasta hawlgalkay fuliyaan ay soo gudbin jireen laakiin hadda mararka qaarkood waxay soo gudbinayaan hawlgallada dhowr saacadood kadib ama xitaa maalin ama 2 maalmood kadib arintaas marka waxa lagu macneeyay inay tahay xeeladaysi arintaana waxay soo shaac baxday kani markii Israa'iil ku andacootay inay dishay afayeenkii Kataa'ibul Qassam Abu Ubayda haddaba xog loo badanayo inay tahay hawlgalladii xalay ilaa iyo maanta dhacay ayay soo gudbiyeen dagaalamayaasha Falastiiniinta aynu eegno warbixin arintan la xiriirta oo telefishinka Al Jazeera uu soo bandhigay
guutada Saraaya al-Qudus ee garabka hubaysan ee ururka Jihaad al-Islaami ayaa war ay caawa soo saareen oo u baahiyay telefishinka Al Jazeera waxay ku sheegeen in dagaalamayaashoodu shalay weerar gantaal oo loo adeegsaday gantaalka loo yaqaano GBU oo ah mid ka haray gantaalada ciidanka Israa'iil ay ku garaacayeen marka Gaza ay ku beegsadeen askar Israa'iiliyiin ah oo ku sugnaa deegaanka Ciisa ee ku yaal koonfurta magaalada Gaza gaar ahaan wadada 8aad bayaankan la faafiyay ayaa lagu sheegay in dagaalamayaashoodu ay arkayeen diyaaradaha Israa'iil oo soo degaya kuwaasi oo daadgureeyay dhimashada iyo dhaawaca askarta ay soo gaartay dhinaca kale guutooyinka Ciisadin al-Qassam ee garabka military ee ururka Hamas ayaa iyaguna ku dhawaaqay in dagaalamayaashoodu galabnimadii shalay oo Isniin ah weerar ay ku qaadeen xarun ciidanka Israa'iil ay ku lahaayeen gudaha iskuul ku yaal xaafadda Tal al-Hawa ee koonfurta magaalada Gaza bayaankooda ayaa waxay ku sheegeen xoogagu in ay rasaas huwiyeen ciidamo Israa'iiliyiin ah iyagoo u geystay dhimasho dhaawac sidoo kale waxay gudaha ku tuureen bambaanooyin laba gaari oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin halkaasi way ku baagsadeen waxay sheegeen in dhaawac iyo dhimasho ay u geysteen ciidankii saarnaa gawaaridaasi waxa intaasi ay ku dareen in ay qarxiyeen taangi nooca markavaha oo ay ku qarxiyeen qarax loo diyaariyay habka dagaalka gurilaha iyagoo intaasi ku daray in diyaaradaha qomaatiga u kaca la arkayay iyagoo goobtaasi ka daadgureynaya ciidanka weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid ka mid ah howlgalladii ciidanka Israa'iil ugu dambeeyay la beegsaday al-Qassam sidoo kale waxay sheegtay inay ku guuleysatay qarxinta kaare noociisu yahay markava oo ku sugnaa koonfurta xaafadda Sabra ee magaalada Gaza iyagoo adeegsanaya walxaha qarxa oo dhulka ay u geliyeen dhinaca kale wargeyska Israa'iil ka soo baxa ee Haaretz ayaa waxa uu qoray caawa in laamaha ammaanka Israa'iil ay xiriir la sameeyeen dalalka soo diray maraakiibta dagaalka si ay u galbiyaan doonyaha doonaya in ay jabiyaan go'doominta lagu hayo marayka Gaza ilaa iyo 50 doonyood ayaa la aaminsan inay ku soo fool leeyihiin marayka Gaza doonyahan ayaa waxa la sheegay in la socdaan maraakiib mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa waxay sheegeen in wadamadaasi ay aqbaleen in ciidamada galbinayay doonyaha ay ballan qaadeen inaysan qorsheyneyn inay isku dhac la galaan ciidamada badda ee Israa'iil waa sida hadalka loo yiri waayahay markan balan agna war ka soo yaray Hamas oo la xiriira hindisihii Trump iyo wararkii ugu dambeeyay amurahan la xiriira iyadoo qadar ay xaqiijisay in Hamas ay u gudbisay soo jeedinta Mareykanka ee dagaalka Gaza ayaa Hussein Badran oo ah xubin sare oo ka tirsan guddiga siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa Islaamiga ee Hamas ayaa waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa ay u furan yihiin dhammaanba soo jeedinada xal raadinta ah Badran ayaa war saxaafadeed oo soo saaray waxa uu ku sheegay in dhaqdhaqaaqu dhammaan fikradaha iyo soo jeedinada xalalka dagaalka ay yihiin kuwa markaasi ay u furan yihiin laakiin wuxuu ku adkaystay in aysan yeelayn inay ka tanaasulaan qiyamka qaran wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyay in iska caabinta Israa'iil ay tahay xaq qaanuuni ah oo waafaqsan dhammaanba shuruucda caalamiga sida uu yiri dhinaca kale mas'uul Falastiiniya oo xogayaal u ah arrimahan ayaa shaaca ka qaaday in Hamas maanta ay bilowday inay ka baaraan degto qorshaha madaxweynaha Mareykanka ee arrimaha dagaalka Gaza mas'uulkan oo xiriir dhow la leh Hamas ayaa waxa uu sheegay in ururka uu bilaabay talooyin xiriir ah oo dhexdiisa ah kuwa la xiriiraya hoggaankiisa dhanka siyaasadda iyo kuwa kale oo la sameeynayo xubnaha militariga ee gudaha Falastiin iyo dibadda isla markaasna uu u soo bandhigay hindisaha lagana sugayo in laga tashado jawaab arrinkaasi la xiriirta oo Hamas iyo dhammaan garabyada kale ee Falastiiniyiintu ay isku raacsan yihiin waxaana la sheegay in wada tashigan uu qaadan karo dhowr maalmood sida ay ku waramayso wakaaladda wararka ee AFP mas'uul kale oo Falastiiniya ayaa xaqiijiyay in ururku uu bilaabay wada tashiyo ku saabsan qorshaha Gaza kadib ama dagaalka kadib waxaana lagu soo waramayaa in Hamas ay doonayso in la gaaro heshiis dhameystiran oo lagu joojinayo dagaalka kaas oo dabaarad qaadaya in Israa'iil si buuxda ay uga baxda Gaza la joojiyo go'doominta saaran tan iyo 2007 isla markaasna dib u dhis lagu sameeyo waxay intaasi ku dareen in Israa'iil had iyo jeer ay carqaladiso heshiisyada iyagoo markaasi sheegaya in ay rabto Israa'iil in ay sii wado dagaalka xasuuqa sida bayaanka lagu yiri waxaana intaasi lagu daray in loo baahan yahay damaanad qaad caalami ah ayna lagama maarmaan tahay arrintaasi
ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ka soo laabanaya Washington ayaa wuxuu ku andacooday in ciidanka Israa'iil ay ku sii jiri doonaan Gaza ilaa iyo inta la xaqiijinayo ammaanka inaysan ku noqonin qatarna Israa'iil. way halkaas marka waxaa ka cad oo arintan lagu tilmaamay inay tahay fariin Xamaas ay sii dirayso oo ah ka tanaasuli mayno qiyamka qaran. maxaa yeelay Netanyahu wuxuu leeyahay ciidankeena marinka Gaza way ku sugnaan doonaan. waxaa kaloo arintan ka hadlay Stephen Witkoff oo ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe. haddaba muxuu sheegay? wuxuu sharaxay in soo jeedin ay tahay hindisaha madaxweynaha Mareykanka uu soo bandhigay. wuxuu yiri wali waxa loo baahan yahay faahfaahin dheeraad ah, balse wuxuu muujiyay rajo ah in arintan lagu guuleysto maadaama ay taageerayaan dalalka Carabta iyo Yurub sida uu sheegay. waaye maxaa kaloo soo kordhay marka? waanu imaan doonaa Israa'iil oo arintan war ka soo saartay. Qatar ayaa soo hadashay marka caawa. Qatar warkeeda siluug baa ku jira. haddaba aynu eegna arintan. wakaaladda wararka dalka Qatar ee magaceeda loo soo gaabiyo KUNA ayaa waxay ka soo xigatay ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani oo la hadlay telefishinka Al Jazeera wuxuuna sheegay in qorshaha uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka uu xambaarsan yahay qodobo u baahan in la cadeeyo lagana gorgortamo. halkaas aan dul istaaga marka. in la cadeeyo oo loo gorgortamo. barnaamijkan ka horeeyay ee wararka caawa waxaan idinkugu soo gudbinay xog ay faafisay shabakada leeyahay Axios ee Mareykanka laga leeyahay oo ay ku sheegtay in 20 qodob ee xalay la soo bandhigay qodobada qaar Netanyahu wax uu ka bedelay. qodobadaas markii maxay ahaayeen marka? waa qodobadii loo gudbiyay hogaamiyaasha Carabta iyo kuwa dowladda Islaamka. waa Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo madaxweynaha Indonesia iyo amiirka Qatar iyo shirkan hadda horteena ka muuqdo way sawirkiisa. Sacuudiga iyo Jordan iyo waa fadhiyeen kulli amiirka Qatar iyo kulli. marka waxa leeyahay sida ay qorayso Axios Netanyahu waxbuu ka bedelay qodobadii. waana sababta Qatar ra'iisul wasaaraheeda u leeyahay waxa loo baahan yahay qodobada in la cadeeyo oo loo gargartamo. aan ku socono warbixinta si aan wax badan u fahmno. وهجاج wuxuu kaloo sheegay in qorshaha shalay lagu wareejiyay wafdigii wada xaajoodka ee Xamaas isla markaasna ay la yeesheen wada hadallo guud. Athani ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in dhinacyadu ay eegaan qorshaha si wax dhisid ah loona qaato fursadaha lagu joojin karo dagaalka. wuxuu intaasi ku daray in ilaa hadda aan la garan jawaabta Xamaas ay bixin doonto ama aan la garanayn, taas oo u baahan buu yiri in waqti la siiyo ayna ku heshiiyaan dhammaan garabyada. ra'iisul wasaaraha waddanka Qatar wuxuu tilmaamay in qorshaha Trump uu leeyahay ujeedo weyn oo ah in dagaalka la joojiyo, balse ay jiraan qodobo u baahan in la cadeeyo lagana wada xaajoodo. wuxuu sheegay in Xamaas si cad ay u muujisay kulanka ay la yeesheen in ay diyaar u yihiin joojinta dagaalka. Xamaas wuxuu sheegay in si mas'uuliyad leh ay u dhaqantay isla markaasna ay ballan qaaday inay daraasayn doonto qorshaha. Athani wuxuu carabka ku adkeeyay in diiradda ugu weyn Qatar hadda ay tahay sidii loo soo afjari lahaa dagaalka, dhibaatada lagu hayo shacabka Falastiiniyiinta, loo dhamayn lahaa dagaalka, gaajada, dilka iyo barakaca. wuxuu sheegay in wixii shalay la soo bandhigay ay yihiin mabda' guud oo u baahan in si faahfaahsan looga doodo si loogu dhaqaaqi karo. wuxuu intaasi ku daray in dalalka Carabta iyo Islaamku dadaal ay ku bixiyeen sidii dadka Falastiin loogu ilaalin lahaa dhulkooda loona gaari lahaa xalka laba dowladood. isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu sheegay in marxaladaha hadda la jooga ay tahay mid muhiim ah oo qayb ka ah wada xaajoodka isla markaasna la filayo in la dhammaystiro. wuxuu ku booriyey in jidka hadda la hayo ee lagu sii socdo lana xaqiijiyo inuu noqdo mid wax ku ool ah oo lagu guuleysto. halkaas marka waxaa ka cad Qatar inay leedahay arrintan waxay u baahan tahay wada xaajood. maxaa imaan kara marka? qobrada waxay sheegaysaa, qobrada waxay leeyihiin waxaa suurtagal ah Xamaas inay tiraahdo dhowrkaas anuu diyaar baa una horta heshiis iyo dagaalka la joojiyo, laakiin qodobadaasi 1 iyo 2 iyo 3 waxaa laga bedelo. maxaa marka arrinta cadaynaya? Netanyahu oo farafareeyay wixii lagu ballamay oo madaxda Carabta iyo dunida Islaamka la tusay wax ka duwan markii shirka jaraad isaga iyo Trump ay qabanayeen
ayaa Trump wuxuu sheegay wax ka duwan Netanyahu uu sheegay wakiilka Mareykanka ee bariga dhexe Stephen Witkoff isagoo muxuu leeyahay arrintan waa mabda' guud qadar maxay leedahay in laga gorgortamo ereygaas marka ugu muhiimsan in laga gorgortamo marka waa qodobka muhiimka ah way haddaba gorgortakaas marka maxaa ka soo kordhay dhanka Israa'iil aynu eegno wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar ayaa goor dhaweeyay wuxuu yiri isbedel kasta oo la dabco in lagu sameeyo qorshaha Trump micnihiisu wuxuu yahay in la aqbalin isagoo la hadlay telefishinka kanaal 15 Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu sheegay in aan laga wada xaajoonayn qorshaha Trump uu soo bandhigay halkaas marka waa ujeedaan wadamada islaamka sida maanta ay qoraysay shabakada Axios waa iyadii tiri Turkiga iyo wadamada Carabta way ka xanaaqeen in la farafareeyay wixii ayaga la tusay kulankii Trump ay kula yeesheen magaalada New York marka dabcan arrintu ma sahlana gorgorta ba ibaad doona sababta cid walba waxay leedahay cid walba arrintan waa arrin Netanyahu uu wato barnaamijka falaqaynta caawa waxaan idinku haynaa wargeysa Faransiis arrintan ka hadlaya haddii warbaahinta Faransiiska iyo sidoo kale wargeysa ka soo baxay Switzerland oo arrintan aad uga hadlaya gaar ahaan meelaha ay arrintan ka taban tahay marka barnaamijkaasina waa idin soo gudbin doonaa waa hagaag haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen laakiin caawa sheekada leedahayna waxay ku saabsan tahay cadaadiska Israa'iil haysta ee caalamka xiriirka kubadda cagta adduunka waxaa laga codsanayaa FIFA in xulka qaranka Israa'iil laga joojiyo ciyaaraha xiriirka kubadda cagta ee UEFA waxaa lagu haystaa isaga laftigiisa in uu ka joojiyo ciyaaraha kooxaha kubadda cagta ee Israa'iil ee ka ciyaaraya Yurub imika shirkadda maalgelisa fanaanada ay ku ciyaarto kooxda qaranka Israa'iil waa shirkadda la Reebok sida halkan aad uga jeedaan calaamadda dhankan bidixna waa xiriirka kubadda cagta Israa'iil magacii iyo calaamadiisii dhinacaas oo kana waa shirkadda Reebok oo ah shirkadda samaysa maaliyadan ama fanaanadan shirkadda marka go'aan bay waxay ku gaartay inay ka laabato heshiiska ay kula jirtay xiriirka kubadda cagta ee Israa'iil isla markaasna magacooda looga tirtiro fanaanada arrintu markay meel adag way maraysaa haddaba aynu eegno sheekada arrintan ku saabsan shirkaddan la yiraahdo Reebok ayaa waxaa la sheegayaa in ay joojisay kafalaqaadka rasmiga ah ee fanaanada xulka qaranka Israa'iil waxaana ay ku dhawaaqday inay joojisay iskaashiga ay la lahayd xulka qaranka Israa'iil isla markaasna ay burisay dhammaanba heshiisyadii labada dhinac ahaa shirkaddu waxay sheegtay in astaanteeda ama loogada waxa loo yaqaan laga tirtiri doono fanaanadaha xulka qaranka Israa'iil laga bilaabo fasaxa caalamiga ah ee soo socda yani bisha soo socota marka ciyaaraha la ciyaari doono qaramada Reebok waxay leedahay halkaas kuma arki karno astaanteena arrinta marka waa arrin cadaadiska qayb ka noqon karta waayahay sheekadaas iyo qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamij ka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo